waxaa jira sidoo kale tole akhbaar uu markaasi cali noo hayo aad xiisa la taasiyo faa'iido weyn oo la bandhigi karaan dhammaan bulshada isticmaasha social media markaasi ku taxaan khaasatan internetka oo maadarigtay ammaanka internetka ama dunidu horumarka ay ka sameeyay internetka ka soo inaan anagu hal sawir oo la soo dhigay ama base hal wax aan mar walba aan kaga sheekeyno oo maadarigtay markaas aan ka sameeyno akhbaar bal dunida internetka halka social media ay kala marayaan cali waa markaasi faafaahin naga siin doona weli ismaaciilina waad mahadsan tahay in horumarka ay dunida ka sameysay hadii markii hore ku koobnaydun in dhinacan casriga horumarka ballaaran ee laga sameeyay in iyo dagaalka qarsoon ee dhinaca internetka in mawduucina barnaamijkan وبرنامج تحنا إنه نقول دونا إلا فرقة بانك سوق هذا دونا وحين كوجش كهيننا هرمركو هذه أي سامين تأولية هاي دينا عطبان يدينا عطقون علي وحفران بارتي نجا قرصون ولو أنا قد أنا مثلا يدينا سومال لأن هاي إنترنت كعالم كنا نقول بالنا إنه سبب تانيجو فيسبوك بين استعمالها بل مركز هذا هاي وحنا نجا استعمالها بقول كيف طبعا وحين جعلنا فاهين أن نقص سمعنا وحيابها هذه أنكوفة فاهين لها دي اللي سورن لها مدو أما شان سنة كهر إن لو رن لها واحد ما يدعي كران ويدعي كران هدي لو ما يدعي كران هدي لو جوادين لها ما يدعي كران دورن لها يتبع هذا الدعاء إن حتويا كده إحنا على الإنترنت كا بنجيا لو دعاء دولة السكوير را وح أمانك إنترنت كهذا وحوس عدين عيدا مدو وطن كاستبع وعيدا كيس أو وقبضا هو ملتري هان لها إمي كمل إنترنت في النقطة. مركب مقول بالويل اللي وسد عليهم. وسايبر سكيورتي بالله أيوة ضد أخاص أو عيدا ما لا تبري أو دين عفرها كذا على ما يوي. مالين دجالك هذا ما هو قال فرحان لسكلا دجال. فرحان لسكلا دجال. هو تاي. أو حرف كبي أو دجال أو قلايو. أيضا حرف قلايس دجال قلايسو. مريكم كويب كوحو صعدا. إنه ملتري جسوا إنه عندنا كقديم أن دجالات هذه لقلا الدنيا دجال كسدحاده خلوي من كراه هو إنترنت فلسكو يردونا استصادر شوي تاي. بلسه إن سيد علماء أنت بدن كتخصصين عهر مركي أمان كإنترنت كهاي شيء إن روبوتي أيه واحد سميه وميلتري وقب بدن أي مريكم كمان تاوتيار صدق إنه دجال هتو قال أو ودرية سيد العراق أو ميلتري ودري لها روبوت بدرية برو صعدة سين عندنا وقديمان قفنا وله وقديمان دجال هذا أنا وحسوا قدموا يعني صدق مليون أو شهر بأمريكا كلو الرا إنترنت كيس كارهام بنتاغونك oo la isku dayaa in la dhaafo xayndaabka ku xeeran ammaankaasi iyo security-kaasi sidii ay uga xadi lahaayeen rag hackers oo ama jabsada internetka u dhaca oo xogo badan ka dhaca bangiga jabsada waa xogo markaas qodob aan iga hayaa faafayntiisana waa lagu gudbi doonaa bal waa tahay qodobkaasi xiisaha badan ee markaasi xali barqad uu nooga soo diyaariyay adduunkii oo waxaan ku dhaar dadkii halka la iska dhigo roobad la isku dagaalamayo sidoo kale madficiga qoriga la iska day internet isku dagaalamayo aan noo gudubno waa qodob la yaab leh qarnigan 12aad waxay dunidu ku tallaabsatay mid kamid ah horumaradii ugu waaweyn abid waxayna taasi ka dhigtay noloshii aadamahu isku soo dhawaato isla markaasina aqoonta la gaaray meesha ka saarta masaafadii dheereed ee dalalku isku jireen iyadoo abuurtay waxa loogu yeero globalization oo noloshii aadamaha ka dhigtay tuulooyin isagyaala 1990kii ayaa dunida loo soo bandhigay adeeg wax weyn ka bedelay qaabkii ay u noolaayeen adeega aynu u naqaano World Wide Web ama caanka ku ah www. waa furaha ay ku bilaabmaan inta badan baraha isgaarsiinta ee aynu naqaano Maxamed Xaaji Maxamuud waa aqoon-yahan barta cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka dunida mar uu u waramayay idaacadda afka Soomaaliga ee VOA oo barnaamijkan aan ka soo xignay wuxuu sawir kooban ka bixiyay furka adeegaasi oo qayb ballaaran ka ahaa ballaarinta internetka oo markii hore ku koobnaa ciidamada Mareykanka oo kaliya waxana u tibaaxay markii sanadkii la gaaray March 12keegii 1989kii ayaa nin markaa British oo magaciisa la yiraahdo Tim Berners-Lee oo ka shaqeyn jiray markaas meel la yiraahdo European Organization for Nuclear Research ka oo qolada European ka baadha nuclear ka baadha research ku sameeysa ayaaba helay web page kan la yiraahdo hypertext markup language kan la yiraahdo oo www la yiraahdo muxuu ahaa ama world wide website la yiraahdo oo saddexda w marka inta badan waxa la geliyaa waa kan aynu isticmaalnay hotmail ko isticmaalno facebook loo isticmaalo website-da kale caalamiga loo isticmaalo waa halka ugu weyn maanta inta badan la isku haystaa internet xoogiisu loo yahay bulshada ay ku shaqeysaa
dhakhtar Australia ku sugan ayaa qalliin ka galaya Mareykanka isagoo isgaarsiinta internetka isticmaalaya. Waxaad fursad u heli inaad ogaan karto qof kasta oo qalab GPS leh haysta halka uu koonkan ka marayo. dadaan wada joogin oo muuqaal ahaan wada sheekaysanaya magaalooyin dhan oo biyaheeda ama electrigeeda laga maamulayo dhinaca internetka. dhammaan waxaas waxay qayb ka yihiin farsamooyinka casriga ee xilligan ina horyaala. Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Sola waa macallin kumanaan arday dhinaca internetka wax ka bara, wuxuuna ku takhasusay cilmiga computer science and electronic engineering. tusaale ahaan waxyaabaha casriga oo dadka hadda aada uga yaabiyo waa satellite navigatorka. awal waxaa isticmaali jiray kaliya ciidamada Mareykanka ayaa isticmaali jiray, laakiin hadda waxaad aragtaa gaari walba oo socda waa lagu soo dhisay telephone application baa lagu soo sameeyey. marka commercialka ugu weyn iminka waddanka Ruushka ayaa laga diraa, wadamada Kazakhstan iyo Azerbaijan xarumo ku yaal ayaa laga diraa. marka teknolojiyada waana aragnay shirkadaha ugu waaweyn oo multi-billion dollar business maanta sida Facebook, sida Google, WhatsApp oo aad u fara badan inay sameeyeen waxyaalo haddii la dhihi lahaa 10 ama 15 sano ka hor ma dhici kara haddii la dhihi lahaa dadkay oran lahaayeen wax dhici kara maahan. marka noloshii oo dhan baa noqotay hadda technology xawaaraan hadduu ku socdana waxaan arki doonaa waxyaabo aan is oran doono maanta xilligan aan ku jiro 2015 ka la dhihi doono lama filaan bay ahayd waxaas inay dhacaan. marka teknolojiyada xawaare ayay ku socontay qof saadaalin kale haba yaratay. ka hor intii aan adeega internetka loo soo bandhigin adduunka, waxaa markii ugu horeysay isticmaali jiray ciidamada Mareykanka. dad badan ayaa xilligan isweydiin kara inay jirto farsamo casri ah oo dadka kale ka qarsoon oo Mareykanka u gaar ah. waa kan Ismaaciil Daahir Cismaan oo ku takhasusay dhinaca ammaanka internetka iyo isgaarsiinta isla markaasina ka shaqeeya dalka Mareykanka. jira mid kale u gaar ah Mareykanka gaar ahaan maaragtay ciidamada sirdoonka iyo militariga oo leeyahay internet oo aanan maaragtay adduunyada kale aysan isticmaalin. waxayna ku kala duwan wax kala ma waa speedka oo maaragtay internetka hadda la isticmaalo ilaa iyo 10 gig megabytes per second ayaa ugu badan maximumka oo wax lagu kala transfer gareyn karo. laakiin internet 2ga meeshaas uu ka bilowdaaba. marka isna wuu kale u imaan doonaa jaamacado gaar ah oo yar ayaa iyagan isticmaala oo access loo siiyay oo research iyo waxaas ku sameeya. sidoo kale isla su'aashaasi waxaa VOA Soomaaliya ay weydiisay Cabdinaasir Sola oo ku sugan dalkaasi Britain. طبعا waa haystaan ciidamada Mareykanka qaas ahaan waxaa jira dhanka wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka la yiraahdo inay jiraan qolo loogu talagalay in ay cilmi baaris ay sameeyaan oo research ay sameeyaan kuwaasoo iminka waxay ku tala jiraan inay u isticmaalaan teknolojiyada gawaarida dagaalada oo aan qofba aan wadin ama ay isticmaalaan robot waxa la yiraahdo oo casriga ah oo dagaalamaya. waxay doonayaan in askarta aan uga dhiman dagaalada. marka teknolojiyada iyo research markay sameeyaan sanado kadibna waxay soo saaraan waxyaabo dadku ay dhihi doonaan waa wax runtii aad dadku uga cajibiya.